sannadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn u kobcayay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga kadib markii dalka Turkiga uu si weyn ugu soo gurmaday Soomaaliya xilligii ay macaluushu ka dhacday 4 sannadood horteed. laakiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ma aha mid dhawaan bilowday. haweeney Soomaaliya ayaa dhawaan u socdaashay dalka Turkiga si ay u baadi goobto halka ay asal ahaan ka soo jeedaan awoowayaasheed. sheekadaasi halka ay ka soo jeedo Aamina oo taariikhdeedu fidsan tahay ilaa iyo 13 sano waxaa inoo haya Haaruun Macruuf. bishii Julaay ee sanadkii hore intii lagu jiray bisha Ramadaan ayaa Aamina Cusmaan Maxamed Khaliil waxay go'aansatay inay baadi goobto halka ay ka soo jeedaan awoowayaasheed oo ay in muddo ah ku taamaysay. Maxamed Siciid Shabeel waa duqii hore ee magaalada Boosaaso waana sayiga Aamina Cusmaan. habeenada ka mid ah waxay iiga bilowday oo waxay tiri Maxamedow waxaan doonayaa walaalle in aan soo ogaado originally halka aan ka soo jeedo iyo dadkaygii. waxaana ku dhaliyey maadaama ay Soomaalidii u ekayn oo ay ku noqoto qof ajaanib ah. dabeedna anigu waan ka aqbalay waxaan u ballan qaaday in aan ku simaayo dadkeedii. kadib markii loo dabaaldegay ciidii Ramadaan, Aamina Cusmaan iyo Maxamed Shabeel waxay ka soo boqoleen magaalada Boosaaso waxayna yimaadeen Muqdisho. waxay tageen safaaradda dalka Turkiga iyagoo u sheegay in Aamina asal ahaan ay ka soo jeedo Turkiga ayna doonayso inay u boqosho dalkaasi Turkiga si ay u baadi goobto awoowayaasheed halka ay ka soo farcameen. safaaradda Turkiga aan tagnay waxaan u geynay dukumiintiyo aabaheed iyo awoowayaasheed ay uga tageen oo ay haysatay. safaaraddii waxayna siisay fiisa waxayna soo siiyeen ciwaanadii dadkii aan wadanay exactly oo mar hore ahaa si ay isu bedeleen. waxaanu ku soo qaadanay fiisihii baan sidaa ku soo qaadanay. waxaanu ka soo degnay Istanbul wax dana kama aanan lahayn. waan soo dhaafnay magaalada la yidhaahdo Izmir baanu nimi waanu soo gudubnay waxaan soo galnay Denizli. 2 maalmood markii ay ku sugnaayeen magaalada Denizli waxay go'aansadeen inay u tagaan xafiiska socdaalka si ay u baadi goobaan halka ay ku nool yihiin ehelkooda. maadaama aysan afka aqooninna waxay heleen dhalinyaro Soomaali ah oo waddankaasi jooga kuwaasi oo u ballan qaaday inay ka caawiyaan dhinaca luqadda. waxayna baadigoobkii ka bilaabeen xafiisyada dawladda. Aamina Cusmaan ayaa sharaxaysa waxa ay kala kulantay xafiiskaasi. hoteelkii aan deganayn baan ka soo baxnay wiilal Soomaaliyaanu ishellay aad bay noo caawiyeen. Soomaalidu waa dad aan kala xirxirnayn aan kala qoqolomnayn meeshay arkaan walaalo ah friends ah inay weligood is aqoon jireen aad moodo marada macnaha ay wataan wada guwan kara marka aad bay noo caawiyeen. wiilashii way nala kaceen waxaynu tagnay subaxaynu baxnay waxaynu tagnay halka la yiraahdo gobolka. xafiiskii ugu horreeyay galeen waxay kula kulmeen nin qareen ah oo nasiib wanaag yaqaana dadka ay raadinayeen. Maxamed Cusmaan Shabeel ayaa sharaxaya waxa ay kala kulmeen. waxaa loo geeyay lawyer markii aan u sheegnay oo tusnay dukumiintigayagii wuxuu yidhi dadkan aniga aad u aqaana. telefoon buu ku dhiftay. telefoonka markuu ku dhiftay nin buu la hadlay wuxuu ku yidhi waxaan hayaa dad ka yimid Soomaaliya oo Turki ah oo idin sheeganaya oo ciwaanadiina wata. wuxuu yidhi hal su'aal baan weydiinaya. su'aalku gabadha xaaskeyga ay weydiiyey sidii wuxuu yiri halkaas su'aal noo weydii aabaheed halku ka shaqeeya dad Soomaaliya jiro Afrika naga jira way jireen oo waan u sheegnay wuxuu yiri waa isleenahay reerkaas inoo hay dadkaas oo hadda u imaanayna saacad kadib. baawur bay noo soo dirsadeen waanu raacnay dukaan magaalada ay kula yihiin bay nageen wiilal kale loo geeyay sawirada aan wadanay baan tustusnay wixii baa la baaray waaba anigoo yar waa hooyaday wixii bay iswada yeesheen aabahooda waceen waxay dhaheen aabo reerkaas aan haynaa. wuxuu yiri haddii weydii hadday ii imaan karaan maxaaba haynaaba ayaga ba raadinaynay waa u tagi karnaa. odayga sawir buu ii diyaarsaday isaga oo dhalinyaro ah iyo aabahay iyo nin kale aabaha ka soo saar aabahay baa waa kan aabaa bas gabadheedu yiri waan aqbalay. waa gartay dadka dhanku isugu yeeray telefoon u diray wuxuu dhalay waxay sii dhaleen intii kala maqnayd dimaradii xaasaskii wixii halkii baa casuumaad iyo lagu sameeyay halkii baan isku sawirtay. haddaba sidee ayaa Aamina awoowayaasheed ay ku yimaadeen Soomaaliya? safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho oo fududaysay safarka Aamina Cusmaan iyo Maxamed Siciid Shabeel ayaa ii sheegtay in Maxamed Cusmaan Khaliil Oolu uu ka mid ahaa askartii Cusmaaniyiinta
kuwaasi oo loo soo diray Soomaaliya dabayaaqadii 1890kii kadibna uu degay Soomaaliya oo uu ku guursaday haweeney Soomaali ah ayna u dhashay 10 carruur ah oo uu ku jiro Aamina Cusmaan aabaheed. wuxuu ahaa Cismaaniyiintii sida aan aniga ku maqlay awoowe nolol kuma soo gaarin aniga kuma garaadsanin ma arkin laakiin taariikhdiisa sawiradiisa sheekooyinkiisa sidaan aabahay ka hayay markab bay la socdeen sida la ii sheegay markabkii Yaman bay uu kaga xumaaday وبعدين مقدشو يمد لكن ما متكل وكسر راعي ما ديار بكو يمد ما قرن كرو كبعدنا محوسمي كبعدنا إن ماشي إن مقدشو مركي أوتري ونكو جورسدي كان مقلي واقرت يو جورسدي يسوع جورسدي إسلام صومالي واقرت ما كذب بأباه يقول شيء يجوا ودنك كودري كموسى صون قانن روسا وحن هاي صراحة إيطالياني كسر أوسيي أو حتى قبيلة تركي أو قرنتها ما لا قبيلة يقول يجرين إيطالياني أو ملينا يعني عثمان محمد خليل oo ahaa Aamina aabaheed waxa uu isna ku sii noolaaday Soomaaliya oo ahaa wadankiisa oo ku dhashay hase yeeshee waxa uu booqan jiray dalka Turkiga markii uu weynaadayna waxa uu ka shaqayn jiray wasaaradda maaliyadda dhulbixinta iyo qandaraasyada qaranka Maxamed Saciid Shabeeli iyo Aamina Cusmaan waxay isbarteen sanadkii 1989 waxayna isguursadeen sanad kadib waxayna isku dhaleen 6 carruur ah inkastoo Aamina ay ku dhalatay magaalada Muqdisho isla markaana aysan hore ugu noolaanin wadan aan Soomaaliya ahayn haddana waxay mar walba ku taamaysay inay ogaato halka ay ka soo jeedo iyo ehelka ay ka soo farcantay kuwaasi oo ay haatan isheleen horta qoyskayga iyo halka ay ka soo jeedaan waxa igu dhaliyay aniga qof Soomaali ah baan ahay horta run baan ku sheegayaa oo Soomaalinimada ay ku weyn tahay hooyaday baa ah macaan aan jeclahay carruurtayda ah jinsigayga iyo dhiigayga baa ah taas oo tahay baanan dadkii ma u ekid sometimes waxaad isleedahay qof waa dareemi kartaa hadda adiga waxaad ku nooshaa qurbo dadka aadan u ekayn waxaad isleedahay xageed ka timid waxaad jeclaysanaysaa inaad waxaa tahay inaad ogaato waana wax weligay igu jiray marka ilaa guryahoodii iyo fardahoodii iyo raadkoodii aan arkay aniga maqbuul maba dhihinba waxay ii sheegtay ehelkeeda ku sugan Denizli inay gacan qabad weyn kala kulantay ayna u sheegeen inay xaqeeda ka helayso dawladda Turkiga wuxuu yiri adeerkay dawladda Turkiga aad magan u tahay xaqeenan ku leenahay waad kaba gashanaysaa miiskaad u garaacaysaa ha cabsan gabar Turkiyada tahay miiska markaad garaacdo oo khalkhaliso iyaga anaa la ii yeeraya ha isoo gaadha qayladaada aan هارون معروف ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay idaacadii galabnimona waa naga intaa